kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa ka wararka ku soo dhawaada qodobada subaxnimo aan idin hayno kuwooda ugu waaweyn ciidamada ammaanka Soomaaliya oo xaafado ka agdhow madaxtooyada Soomaaliya ka sameeyay howlgallo qorsheysan iyo howlgalkaasi oo meelo waaweyn galay Khadiijo Maxamed Diiri iyo wasiir Xamse oo hadallo kulul isugu jawaabay lacag la yaab leh ayaa ku maqan Cali Guudlaayo waxa uu gacanta ka taagay faragelinta fil Soomaaliya ee xildhibaanada ka imaanaya maamulka Hirshabelle dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hanjabaado u dirtay dalka Koonfur Afrika oo Soomaali lagu xasuuqay wasiir hore maareeyo oo shaaca ka qaaday qorshe cusub ay kula dagaalamayaan fil Soomaaliya al-shabaab oo la wareegay deegaano simaada degmada Hubyo ee gobolka Mudug ciidamada ammaanka maamulka gobolka Banaadir oo howlgallo qorsheysan ka sameeyay magaalada Muqdisho iyo dibadda oo aan idin kaga hayno Mareykanka Ethiopia hanjabaad u soo diray daawade mar kale is arag wanaagsan halkani waa ka wararka oo aad daawanaysaan subscribe inaan noo saarto ayaan ka cusanaynaa haddii aad nagu cusub tahay sidoo kalena waxaan ka cusanaynaa inaad muuqaalka like saarto share na dhahdo si xogaha aan baahino ay u gaaraan bulshada kale ee Soomaaliyeed aynu ku bilownay daawadayaal xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin reer Hiiraan ah oo qayb ka yahay taliyihii hore ee Nisa Cabdullaahi Sanbululshi ayaa magaalada Muqdisho waxa ay kula kulmeen Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaanada iyo siyaasiyiinta oo dhamaantood u dhashay beesha Xawaadle ayaa Guudlaayo ka dalbaday inuu hor istaago in gudoomiyaha guddiga maamulaya doorashada baarlamaanka Soomaaliya ee ka imaanaya dhinaca Hirshabelle aan laga dhigin Axmed Xasan Diini kaas oo isla shalay markaasi loo doortay xilkaasi Diini oo loo doortay gudoomiyaha guddigaasi ay xildhibaanadu ku eedeeyeen inuu ugu hanjabay in dhammaan xildhibaanada Xawaadle kaliya oo ku soo laaban doono Nuur Iidow Bayle halka inta kalena ay ku dadaali doonaan inaysan soo bixin isaga oo sababtu ku sheegay in markaas uu ka soo baxay fil Soomaaliya Cali Guudlaayo ayaa mas'uuliyiinta ula kulmay waxa uu sheegay in Diini ay wadato fil Soomaaliya isla markaana uusan wax badan ka qaban karin sidoo kale siyaasiyiinta ayaa sheegay in Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaayo uu soo dhiibay madaxtooyada Soomaaliya isla markaana laga gaarayo go'aan siyaasadeed ee deegaankiisa ama mid guud ee dalka ah Hirshabelle gaar ahaan magaalada Beledweyne ayaa kamid ah magaalooyinka ay gadacid doonto doorashada ugu adag ee baarlamaanka Soomaaliya maamulka Hirshabelle ayaa loogu saadaalinayaa inay ka soo bixi doonaan xildhibaano aad u taabacsan fil Soomaaliya sababtuna ay tahay in maamulkaasi uu si buuxda gacanta ugu jiro madaxtooyada iyada oo Guudlaayo oo arrinkaasi raali ka yahay dhinaca kale wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Khadiijo Maxamed Diiri iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Xamse Saciid Xamse ayaa isdhaafsaday hadallo kulul oo ku aadan shaqada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha labadan wasiir ayaa shaqada labadaasi wasaaradood loo kala wareejiyay markii uu xafiiska yimid ra'iisul wasaaraha xilligan ee Maxamed Xuseen Rooble waxayna wasiir Khadiijo ka soo jawaabtay dhaliil uu wasiir Xamse u jeediyay wasaaraddii ay ku wareejisay wasiir Xamse Saciid ayaa warbaahinta u sheegay in markii loo magacaabay wasaaradda dhalinyarada uu waayay xafiis uu ku shaqeeyo sidoo kalena uu markaasi tagay shaqaalihii oo fasax iskaga maqan ku dhawaad 2 sano mushaarna iska qaadanaya taas oo shaqo badan kadib uu sheegay in hadda uu wax badan ka bedelay wasiir Khadiijo Maxamed Diiri oo hadalkaasi ka caruurtay ayaa ku soo jawaabtay waxayna wasiir Xamse ku eedeysay in markii la bedelay uu horay u sii kaxaystay oo soo celilay kari waayay gaari ay leedahay wasaaradda gargaarka 28 Oktoobar 2020 ayuu uga wareejiyay xilka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ilaa iyo haddana waxa uu haystaa gaariga hantida wasaaradda lagu iibiyay waliba iyada oo amar ku bixiyay hanti dhowraha guud ee qaranka inuu soo celiyo ilaa iyo haddana lagama hayo hanti qaran weligay la iguma eedeyn ay wasiir Khadiijo ku tiri qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook wasiir Xamse ayaa yiri sidoo kale habeen aan la wareegay xafiiska wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan waayay xafiis aan subaxii ku shaqo galo waxaan u tagay iyadoo shaqaalaha wasaaraddu sanad iyo bar ilaa 2 sano fasax iskaga jiraan mushaarna iska qaadanayaan runtii waxay taasi ugu noqotay mushkilad weyn oo meesha ka jirtay wasiir Khadiijo oo ka jawaabaysay aadeynta Xamse ee xafiiska iyo fasaxa shaqaalaha la xiriirta ayaa tiri war dowladeed warqad uu ku yaala wasiir Xamse waxaad kamid ahayd golihii wasiirada ee aqbalay fasaxa shaqaalaha wasaaradda ee weydii guddigaaga anshaxa iyo kan markaasi goob shaqo ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya daawadayaal isjiijidka ka soo dhax cusboonaaday labada wasiir ee wasaaradooda loo kala wareejiyay wasiir Xamse iyo wasiir Khadiijo ayaa imaanayo ayadoo xilliganba doorashada Soomaaliya ay in soo cagacageynayso waxaad daawanaysaan warka subaxnimo ee ka wararka qaybi ugu dambeeyay saaxiib la soo aan isla sii marayna waxa ka cusayna hadii aad nagu cusubtahay ina mar kale muuqaalka like saarto share na dhahdo subscribe na saarto ka wararka si xogaha aan baahino ay u gaaraan bulsho badan oo Soomaaliyeed oo xogahani baahi weyn u qaba dhinaca kalena dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay rabshadaha iyo biliqada ka socda dalka Koonfur Afrika ama South Africa halkaas oo lagu dilay in ka badan 70 ruux oo ay ku jiraan
4 qof oo Soomaali ah war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 27 saac ee la soo dhaafay gobol ku yaala dalka Koonfur Afrika lagu dilay 4 qof oo Soomaali ah qaar kalena lagu dhaawacay isla markaana lagu boobay hantidooda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday dawladda South Africa inay xoog saarto sida ugu haboon ee xogaha burcadda ee kooxaha burcadda iyo tuugada uga ilaalin lahayd muwaadiniinta Soomaalida iyo gacan iyo markaasi ganacsigooda dhinaca kale ilaa 72 qof ay sii maraysaa ilaa 72 qof ay sii maraysaa tirada dadka ku dhintay rabshadaha ka socda dalka South Africa tan iyo markii la xiray madaxweynihii hore ee dalkaasi Joseph Zuma toddobaadkii hore talaadii shalay booliiska oo kaashanaya ciidamada militariga ayaa gobollo badan oo dalkaasi kamid ah uga hortagay dad badan oo boob iyo biliqo u geysanayay goobo ganacsi madaxweynaha dalkaasi South Africa ayaa dadka biliqada iyo rabshadaha wada ugu baaqay inay joojiyaan falalka guracan oo ay wadaan sidoo kalena waxa uu ku booriyay guud ahaan shacabka xasilooni iyo deganaan inay muujiyaan isla markaana afkaarahooda si ay u gudbiyaan ay xushmad ku dhihan tahay dalka South Africa wuxuu kamid yahay dalalka Afrika ku yaalo ee Soomaalida ka ganacsata dhibaatada ugu weyn loogu geysto qaybaha dambe ee warkayga ayaan saaxiibayaal isla soo gaarnay haddii aynu eegno qodobka ugu dambeeyo ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa xalay mar kale waxa ay howlgallo ka sameeyeen agagaarka xarunta madaxtooyada qaranka kaas oo ah mid lagu xaqiijinayay amniga sida ay sheegeen laamaha ammaanka howlgalka oo ah mid qorsheysan ayaa waxa ciidamada booliiska Soomaaliya ay ka furiyeen degmada Boondheere gaar ahaan xaafado u dhow xarunta Villa Soomaaliya ila deegaanka ah ayaa inoo sheegay in howlgalka si gaar ah looga sameeyay inta u dhaxaysa isgoyska Manapol iyo ilaa taalada daldalka Dahson waxaana ciidamadu inta uu socday baaritaanka ay xireen dhaqdhaqaaqa wadooyinka wararka ayaa intaas ku daray in ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen tiro dad ah oo tuhmanayaal ah kuwaas oo ay ku socdaan baaritaano halka kuwa kalena ciidamadu ay sii daayeen markii ay qabteen kadib saraakiisha ammaanka weli war rasmi ah kama aysan soo saarin howlgalkaasi oo ahaa mid ballaaran isla markaana lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Muqdisho sidoo kale ila wareed lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in howlgalkan uu daba socdo mid habeen ka hor laga sameeyay degmada Warta Nabadda kadib markii turab hubiyaal ah lagu weeraray xaafado hoostaga ama ka hoosta kaga yaala Villa Soomaaliya ammaanka Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay markaasi mid aan xasiloonayn waxaana gudaha caasimadda ka dhacay falcil darro ah sida dilal qorsheysan iyo weeraro qaraxyo ah oo shakhsiyaad markaasi lala beegsanay waxaana ugu dambeeyay qaraxii lala beegsaday taliye Farxaan Qarole oo qaraxaasi ka badbaaday si kastaba dhacdooyinkan iyo howlgallada ay wadaan ciidamada ammaanka ayaa ku soo aadaya xilli haatan la galayo doorashooyinka dalka oo heshiis laga gaaray qaybaha dambe ee warkaygan saaxiibayaal isla soo gaarnay sidaan hore idinku sheegayba wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada golaha shacabka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ay ku heshiiyeen in la boobo kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland Maareeye ayaa si cad u sheegay in shirkii heshiiskii looga gaaray arrimaha doorashooyinka ay ahayd inay ka qayb galaan siyaasiyiinta gobolada waqooyi balse loo diiday taasina ay keentay in siyaasiyiinta qaarkood ay dib uga laabtaan deegaanada maamulka Soomaaliland wasiir hore wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu sheegay in sida hadda wax loo wado ay buuq u keeni karashooyinka dalka daawadayaal gabagabada warkayga ayaan isla soo gaarnay guud ahaan warkii subaxnimo ee saaka ka wararka aad kala socoteen waa inaga inta goor dhow xogo kale ayaan idin wadaagi doonaa ee isha inagu soo haya waxaana idin leenahay wad mahadsantiin